goordhaweed waxaa soo gabagaboobay isku aadka Champions League oo la sameeyay. Group A waxaa galay kooxda kubadda cagta ee Ajax, Liverpool, Napoli iyo sidoo kale Rangers. Groupkan ayaa moodaa inuu Liverpool ku adkaan doono maadaama qaab ciyaareedka Liverpool xilli ciyaareedkan uusan aad u wanaagsanayn. Sadio Mane oo Champions League inta badan kulamada ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo dhaliyay goolal aad u fara badan oo hadda uu ka maqan yahay. Group B waxaa ku jira kooxda FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen iyo Club Brugge. Groupkan ayaa moodaa inuusan aad u adkeyn ama kooxo aad waaweyn aysan ku jirin marka laga reebo kooxda Atletico Madrid, balse kooxaha ku jira maaha kooxo looga bartay inay qaadaan Champions League ama heer fiican ay ka gaaraan. Group C waxaa ku jira waa groupka geerida la dhihi karaa si haddii loo fiirsho waa Bayern Munchen, Barcelona, Inter walow ay ku jirto koox la yiraahdo Pilsen. Groupka D waa Frankfurt, Tottenham, Sporting CB iyo sidoo kale kooxda Marseille. Tottenham ayaa moodaa inay ka soo bixi doonto groupkan ayadii Frankfurt ayaa soo qaaday horyaalka loo yaqaano Europa League saas darteedna kaga soo qayb gashay horyaalka Champions League. Group E waa AC Milan, Chelsea, Salzburg iyo Dynamo Zagreb. Groupka ayaa ku wada jiraan intaas oo kooxood, afar kooxood ayaa ku jirta groupka. Chelsea ayaa u muuqato iyo kooxda kubadda cagta AC Milan inay ka soo bixi doonaan groupka. Chelsea ayaana group aad u adag oo aan banayn ku aaday walow AC Milan ay tahay koox aad u adag iyo kooxda kubadda cagta ee ka socota dalka Jarmalka. Sidoo kale Real Madrid ayaa heshay group la dhihi karo way ka soo bixi kartaa waliba kaalinta koowaad ay ka soo bixi kartaa waa groupka la yiraahdo ku jirto kooxda Real Madrid waxaa kula jira Leipzig, Shakhtar Donetsk iyo Celtic. sidoo kale Man City ayaa lagu yaqiinay inay inta badan hesho groupyo aad u jilcan sanadihii la soo dhaafo idil balse mankana waxaa la saadaalinayaa Man City inay kaalinta koowaad ku soo bixi doonto si lamid ah sidii hore. Man City, Sevilla, Dortmund iyo Copenhagen ayaa ku wada jira group G. Groupka ugu dambeeya group H waxaa ku wada jira kooxaha Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica iyo kooxda Maccabi Haifa la yiraahdo. Paris Saint-Germain iyo Juventus ayaa loo saadaalinaya groupkani inay ka soo bixi doonaan walow Benfica dalka Portugiiska kooxda ka dhisani aysan dabyarshidaynin. haddaba daawada sidoo aragtaa Champions League walow kooxo badan oo lagu yaqaan Champions League dhawaanahan bay ka maqan yihiin. Arsenal ayaa muddo 5 sano ka maqan, sidoo kale Man United ayaa sanadkan ka maqan. Cristiano Ronaldo ayaa u badan tahay inuu san ciyaari doono sanadkan Champions League. haddaba daawada ayaa leedahay kooxda la tabi doona way noqon doontaa Champions League xilli ciyaareedkan ay ka maqan. yaas leedahay groupyadan waxa 8 group kooxaha ka soo bixi doona Champions League ay ma doona wareegga 16ka. waxaan ku maasantahay daawashada barnaamijka oo idinka la socodsiinaynay isku aadka Champions League oo goordhaweed soo baxay. sidoo kale berito waxa soo bixi doona isku aadka wareegga ama horyaalka aan yiraahdo loo yaqaano Europa League. waad ku maasantahay daawashada barnaamijka fadlan like saar videoga sidoo kale hadaad channelka cusub tahay subscribe saar. mar kale waan ku maasantahay daawashada iyo la socodka channelka.